kulanti wacan daawadayaasha ku xiran page-ka baarka 252 waxaad ku soo dhawaataan taariikhda ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara naadiga Barcelona ee Ivan Rakitic. ka hor inta aanu guda gelin barnaamijka waxaanu mahad celinayaa soo saaraha barnaamijkan Cabdullaahi Ishkar iyo habeenta muuqaalka Cabdirasaaq Maxamed Axmed. sidoo kale inta aanu barnaamijka u guda gelin waxaan xusuusinayaa saaxiibada inay subscribe saaraan channelka baarka 252 si ay u soo gaaraan muuqaal waliba oo aan soo dhigno iyo muuqaaladeena kale. waxaan markan guda geli doonaa oo bilaabi doonaa taariikhda ciyaaryahanka xulka qaranka Croatia ee kooxda Barcelona ee Rakitic. waxa uu dhashay 10 Maarso 1988 waxa uu ku dhashay magaalada Moulin ee dalka Switzerland. hooyadiis waxaa lagu magacaabi jiray Kata halka aabihiis la oran jiray Luka. labadiisa waalid asal ahaan waxa ay ka soo jeedaan dalka Croatia. xiisad dagaal oo ka bilaabatay dalka Yugoslavia awgeed waalidkiis waxay u carareen Croatia waxaana ugu sii gudbeen Switzerland si ay u badbaadiyaan noloshooda iyo si ay marqaati kaga noqdaan dhalashada walaalkooda. tani waxa ay dhalisay in caruurnimadiisii uu ku qaato Switzerland oo aabihiis shaqo uu ka helay goob dhisme oo ku taala Moulin. waxa uu ku soo barbaaray caqiidada Kaatooliga isagoo ku koray kubadda cagta iyo ruuxaanta Croatia. sidoo kale aabihiis iyo walaalkiis waxay ahaayeen ciyaartoy. markii uu dhameeyay waxbarashada dugsiga hoose waxa uu bilaabay inuu xoogga saaro shaqadiisa isboorti isagoo dhiirigelin ka helay qoyskiisa. waxa uu go'aan ku qaatay inuu u ciyaaro xulka Croatia. waa go'aankiina ay ka caroodeen taageerayaasha xulka Switzerland oo iyagu ugu hanjabay inay dili doonaan qoyskiisa kadib fariimo iyo wicitaano dhanka emailka iyo telefoonada kaga yimid waalidiintiisa sabab la xiriirto inuu xirtay maaliyadda xulka qaranka Croatia. Ivan Rakitic waa xirfadle ku xeel dheer kubadda cagta ugu dambeyntii kaasoo ka ciyaara booska dhexe una ciyaara kooxda Isbaanishka ee Barcelona. sidoo kale waa kabtan ku xigeenka xulka qaranka Croatia. ugu dambeyn baarka 252 fadlan rukumo channelka YouTube-ka haddii aad ku cusub tahay. inta muuqaalkeena xiga ee taariikhda ciyaaryahanada u ciyaara Barcelona aan isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.